soddonkii sano ee ugu dambeeyey waxaa dunida ka dhacay isbedeladii ugu weynaa dhanka habnololeedka wax soo saarka waxaana sababta ugu weynaa teknolojiyadda oo saameyn xoogan ku yeelatay dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha sida ganacsiga siyaasadda safarada dagaalada waxbarashada caafimaadka iyo qaybaha kale ee la xiriira isdhexgalka dadweynaha shaqooyinkii 10 sano ka hor ee ahaa kuwa ugu darajada waaweyn ayaa maanta ah kuwa daaqada kasii baxaya soo ifbixidda aaladaha ku shaqeeya teknolojiyadda ayaa suuqa ka saaraya shaqooyinkii hore kuwa cusubna miiska soo saaray iyadoo aan hal mar la soo koobi karin ama saadaal lagu wada samayn karin xirfadaha mustaqbalka yeelan doona ahmiyadda koowaad haddana waa shaqooyinka iyo xirfadaha la filayo inay jaanisyo sare helaan mustaqbalka dhow waa su-aasha aynu jawaabteeda ku ogaan doono muuqaalkeena maanta magacaygu waa diin xuseen shacab halkani waa soomkaasti kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta shaqada koobaad cyber security isticmaalka aaladaha casriga ah waxay noqon doonaan halka lagu keydiyo dhammaan xogaha dowladuhu waxay leeyihiin kaydad iyo shabakad isku xiran oo lagu hayo diiwaanada iyo xogaha dadweynaha shirkadda ganacsiga ayaa waxa ugu muhiimsan ilaashadaan ay tahay xogtooda iyo sirahooda dhammaan qayb kasta oo muhiim ah sida bangiyada isbitaalada jaamacadaha shirkadaha iyo nidaam kasta oo adeegsada teknolojiyadda waxa uu muhiim gooni ah siinayaa sida uu xogtiisa u ilaalin lahaa in la xado ama xadgudub lagu sameeyo isticmaalka baasan ee internetka ayaa keenay inay soo baxaan kooxo burcad ah oo si sahlan u dhici kara kaydadka xogaha iyo shabakadaha ay shirkaduhu adeegsadaan arrintan ayaa keentay inay baahi xoogan ay soo baxdo oo ku aadan sida ay shirkaduhu ama nidaamyadu u rabaan xirfad ay waardiye adag ka qabtaan kaydadka xogahooda iyo sistamyada ay ku shaqeeyaan xirfadda cyber security ayaa lagu tilmaamaa inay kaalinta kuwaad kaga jirto xirfadaha sida aadka loo baadigoobi doono mustaqbalka maantadan la joogana waa mid ka mid ah tiirarka adag ay shirkaduhu ku tashadaan shaqada labaad koodinku waa xirfad la xiriirta qoridda habab kala duwan ee loo dhisay nidaamka softweerada iyadoo la adeegsanayo luuqadaha kala duwan ee kombiyuutarka fahmi karo hana qaadi kara teknolojiyadda ayaa soo ifbixisay sida ay xirfadani ay muhiimadda weyn u leedahay aalad kasta oo casri ah waxay ku shaqaysaa kood ama dhigaalo suurtageliya inay sidaasi u shaqayso hagayaashana ay ku shaqeeyaan applicationada softweerada makiinadaha casriga ah intuba waxay ku shaqeeyaan qaabab la baray ee loo yaqaana kood si fudud koodku waa habka qeexaya jidka qulqulka isticmaalka shabakad kasta xirfadda koodinka ayaa maanta ka mid ah xirfadaha ay dunida ku kala tagtay wax kasta haga dalalka qaar ayaa bilaabay in carruurta xilli hore la baro sida loo qoro koodka si ay mustaqbalka u noqdaan kuwo diyaar ah shaqada saddexaad data engineer dhammaanteen maanta waxaynu isla aragnaa sida helidda xogta ay u tahay awoodda ugu horeysa ee lagu dhisay wax kasta tusaale ahaan aaladda facebook iyo kuwa la midka ah waxay aad ugu dadaalaan inay helaan xogaha kula xiriira sida waxyaabaha jeceshahay waxaad internetka ka raadiso iyo kuwa la midka ah xogahan ay shirkadaha internetka ku adeegsadaan inay fursado u bedelaan si ay shabakadooda ugu digaan kuwa noloshooda ay ka maarmi weydo oo wax walba aad jeceshahay aad ka dhex helayso haddaba data engineering waa xirfadda xogaha u bedesha nidaamyo daboolaya baahiyaha dadka la rabo inay adeegsadaan xogtan ayaana ka dhigaa mid diyaarsan qaab shabakado ama nidaamyo kale oo isku xiran aaladaha casriga ah sistamyada iyo dhammaan hababka kale ee teknolojiyadda ayaa u baahan in lagu dhiso xog diyaarsan si ay u noqdaan kuwo waxtar leh iskama dhisna aalad iyadoo aan la cabirin baahiyaha loo qabo waxa ay xalinayso iyo sida la rabo inuu adeegsigeedu u ekaado dhammaan shaqadaas waxaa qabanaya waa data engineering xirfaddan ayaa aada loo tilmaamaa inay muhiimad gooni u leedahay mustaqbalka sare u kaca teknolojiyadda ayaa siinaya fursad aada u sareysa dadka yaqaana data engineeringka shaqada afraad environmental science isbeddelka cimilada ayaa waxau noqday mid dhibaato ku haya dal walba oo caalamka ah diiqowga hawada cimilada sii kululaanaysa ama meelaha qaar gelinaysa qabowga daran abaaraha fatahaada iyo dhammaan musiibooyinka kale ee la xiriira burburka deegaanka ayaa abuurtay baahi loo qabo in la helo aqoon-yahano xirfad u leh
sidii loo badbaadin lahaa deegaanka nagu xeeran. Xirfaddan la xiriirta culuumta deegaanka ayaa mustaqbalka noqon doonta mid aad loogu baahi qabo, maadaama la saadaalinayo in isbeddelka cimilada iyo saameynta ay leedahay ay noqon doonto mid ka culus halka ay maanta joogto. Waana tan arrinta muhiimadda goonida u leedahay helidda xirfadlayaal leh aqoonta maareynta bii'ada ama deegaanka. Shaqada shanaad agriculture. Dunidan aan maanta ku noolnahay, dal walba wuxuu ku dadaalayaa inuu helo waxa loo yaqaano amniga cuntada ama food security. Waa xaalad dhab ah haddii uu dalku ku guuldareysto inuu maareyn waayo cuntada ay dadkiisu cunayaan, oo uu galo xaalad fowdo ah iyo inuu gacan horse cuntada kaga doonto dalal kale. Si taasi loogu fogaado, waxaa waqtiyada dambe soo ifbaxday hab beerasho casri ah oo sahlaysa si loo soo saaro dalagyo kala duwan iyada oo la adeegsanayo habka beerashada casriga ah. Habkan ayaa ah isticmaalada xirfado kala duwan oo dalagga lagu soo saarayo iyadoo aan la raacaynin habkii hore ee qadiimiga ahaa. Xirfadlayaasha habka beerashada casriga ah ayaa ah kuwa maanta aad loogu baahan yahay. Mustaqbalka isbeddelka cimiladu sameyn doono dhulal badan oo maanta beerashada ku habboon, waxaana loo baahan doonaa xirfadlayaal yaqaana beerashada casriga ah iyada oo la isticmaalayo habka beerashada casriga ah. Habkan ayaa ah isticmaalada xirfado kala duwan oo dalagga lagu soo saarayo iyadoo aan la raacaynin habkii hore ee qadiimiga ahaa.